cilaaqaadka dawliga ah ee u dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu waa mid gundheer oo soo taxnaa sanado badan. Isweydiintu waxay tahay maxaa laga dheefay xiriirkaasi muddada dheer soo taxnaa, kaasi oo dacallada la galay mashaariic horumarineed iyo iskaashi laba dawladood. Sheekadan soo socota ayaad kaga bogan doontaa waxa uu ka dhigan yahay xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka. xidhiidhada iyo iskaashiga dhexmara ummadaha ku nool dalalka dunidu waxay ku salaysan yihiin cirqiyo kala duwan oo dhammaantoodba ku dhammaada wadaagista nolosha iyo dhaqandhaqaalaha iyo isku tiirsanaanta danaha guud iyo maslaxadaha nolosha ummad kasta. shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ee ku nool geeska Afrika iyo shacbiga dowladda Imaaraadka ee ka tirsan Khaliijka Carbeed waxaa midaysay nolol ganacsi wadaag ah oo muddo dheer soo taxnayd. Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu waxa ay maalayaan natiijada xiriir ummadeed oo si xoog leh u soo bilaabmay muddo haatan laga joogo ugu yaraan 40 sannadood, taasi oo labada shacab ay ku wada xidhiidheen hab ganacsi oo qoto dheer, iyadoo ay jiraan waxyaabo xiriirkaasi tayo u sii yeelay oo ay ka mid yihiin xiriirka diineed, midka baayac mushtar oo isagu meel sare gaaray 20kii sano ee la soo dhaafay. Somaliland waxay maamulkii Ingiriiska xor ka noqotay 1960kii, inkastoo xorriyaddaasi ay marin habowday, balse waxay dib ula soo laabatay oo ay hanatay muddo haatan laga joogo 32 sannadood oo ku beegan 1991kii, iyadoo dib u taagtay calankeeda, kaas oo ilaa iyo maanta ay harsanayso. dowladda Imaaraadkuna waxa ay gobonnimada heshay Diseembar 2, 1971 oo haatan laga joogo 51 sannadood, markaasi oo ay ka hoos baxday boqortooyadii Ingiriiska oo dhulkaasi maamuli jirtay. waa boqortooyo ka kooban 7 imaaradood oo isu tegay, kuwaasi oo laga xukumo oo ay madax u tahay imaaradda Abu Dhabi. dhaqaale ahaana waa dal aad u sarreeya maadaama ay ka mid yihiin waddamada shidaalka dhoofiye ee dunida oo miisaaniyaddooda lagu qiyaaso ilaa 659.5 bilyan oo dollarka Maraykanka. Imaaraadku waxa uu xiriir la leeyahay inta badan waddamada caalamka, waxaana xidhiidhadaasi ka mida midka uu la leeyahay Somaliland oo dhaqaalaheedu uu hooseeyo isla markaasina hadda ku dadaalaysa inay ka faa'iidaysato fursadaha maalgelinta ee Imaaraadka Carabtu ay ka fulisay Somaliland. inkasta oo shacabka Somaliland ay muddo badan ku taxnaayeen xiriirka ganacsi ee Imaaraadka, isu socodkuna uu jiray, balse diiradda Imaaraadka Carbeed ayaa Somaliland waxay si dhow u soo qabatay soona jiitay istiraatiijiyadda goobta ay ku taalla Somaliland oo ah qooriga cadmeed ee xeebta badda cas, halkaasi oo ay daadsan yihiin xadhka badan oo ku xidhiidhsan danaha Imaaraadka. marinkan ayaa ah ka ugu mashquulka badan dunida ee maraakiibta ganacsiga ee adduunka isaga gudbaan, waxaana xeebaha koonfureed ka soo kulaalaysa Jamhuuriyadda Somaliland. sanadkii 2016 ayaa golaha wakiilada Somaliland waxay ansixiyeen nuxurka heshiis maalgelineed oo dekedda Berbera ah oo ay maalgelinayso sharikadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP World. heshiiskaasi oo dhigayay in ka badan 400 milyan oo dollar lagu maalgeliyo ballaarinta dhismaha dekedda, hagaajinta adeegga iyo horumarinta cududa shaqaalaha ee ka howlgala dekedda. intii xiriirka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Imaaraadku uu soo taxnaa, waxaa labada waddan ay isdhaafsadeen wakiilo dowladeed oo u fadhiya Hargeysa iyo Dubai, kuwaasi oo danaha labada waddan si mugla uga shaqeeya. dhinaca Somaliland, xafiis dhanka diblomaasiyadda ah oo rasmi ah ayaa uga furan magaalada Dubai, kaasi oo ilaa iyo hadda ay ka howlgaleen 3 diblomaasi oo danaha Somaliland ka wada gudaha Imaaraadka Carabta. sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wakiil dowladeeda matala
u soo magacawday Somalilan Ambassador Cabdalla Al Naqbi, kaasi oo danaha dowladdiisa iyo xiriirinta Somalilan iyo Imaaraadka u fadhiya caasimadda Hargeysa. Dhinaca maalgashiga, dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa maalgelin weyn ay ku samaysay kaabayaasha dhaqaalaha Somalilan sida dekedda, garoonka diyaaradaha Berbera, jidadka iyo adeegyo caafimaad oo Somalilan laga bixiyo, kuwaas oo lacag malaayiin dollar ah ay ku bixiyeen hirgelintooda. tusaale ahaan, maalgelinta dekedda Berbera ee la ballaariyey waxaa ku baxaysa 460 milyan oo dollar, waxaana hadda la dhameeyey wejigii koowaad ee dhismaha dekedda oo noqday mid casri ah, waxaana lagu rakibay wiishashka waaweyn ee dhufta koonteynarada badeecadaha sida, kuwaasi oo shaqeeya marka la dejinayo ama la saarayo maraakiibta. Taasi ayaa waxaa heer sare ay ka dhigtay farsamada ay ku shaqayso dekedda Berbera oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Somalilan. DP World oo ah sharikad Imaaraadku leeyahay ayaa lacag fara badan gelisay dekedda iyo casriyeynta haatan ka muuqataba, waxaana la filayaa qaybta labaad ee ballaarinta in la soo gabagabeeyo sannadaha soo socda. Maalgelintan Imaaraadka ayaa dekedda Berbera waxay dhaxal siin doontaa inay tartan la gasho dekedaha dariskeeda ah sida Mombasa, Muqdisho iyo Djibouti iyo dekedaha kale ee Yemen iyo Cumaan oo dhammaantoodba Berbera ay soo gaadhay heerka ay taagan yihiin. Iskaashiga iyo isfahamka dowladeed ee ka dhexeeya Somalilan iyo Imaaraadka waxaa kale oo ka dhashay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay bixiso dhaqaalaha lagu maalgeliyey dhismaha jidka Berbera Corridor oo ah jid aad u casri ah oo isku xidha magaalada dekedda leh ee Berbera iyo magaalada saaran sohdinta Itoobiya ee Wajaale. Jidkaasi oo muddo dheer ay Somalilan maalgelin u raadinaysay lagama maarmaanna u ah isku xidhka gobolka ayaa dowladda Imaaraadka Carabtu waxa ay go'aansatay inay maalgeliso dhismaha jidkaasi oo dhererkiisu uu ka badan yahay 200 kilomitir, kaasoo ay ku baxayso adduun lacageed oo ka badan 100 milyan oo dollar. waxaana maalgashigani uu sii xoojiyey cilaaqaadka ka dhexeeya Somalilan iyo Imaaraadka Carabta oo ah laba dal oo isugu xidhan qaab ummadeed iyo qaab dowladeed intaba. Dhanka Somalilan waxa ugu weyn in muwaadiniinta Somalilan ay muddo dheer ku xidhnaayeen suuqyada Imaaraadka Carabta, waxaana ay ka soo waaridaan badeecadaha ganacsiga, gaadiidka iyo arrimaha kale, iyadoo halkaasi ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo Somalilan ka soo jeeda kuwaasi oo degan kana shaqaysta Imaaraadka. taasi ayaa muujinaysa isku xidhnaanta dadeed ee ka dhalatay cilaaqaadka Somalilan iyo Imaaraadka Carabtu ay leeyihiin. intii haddaba uu soo taxnaa xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Somalilan iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa booqashooyin rasmi ah ku tegay waddanka Imaaraadka Carabta madaxweynayaal ka socda Somalilan, waxaana ugu dambeeyey madaxweynaha haatan xilka haya Mudane Muuse Biixi Cabdi oo booqashooyin rasmi ah ku tegay waddanka istaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada madaxda Abu Dhabi, halkaas oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay isaga iyo wafdigiisa, isla markaasina uu helay hab maamuus aan ka dhicin kuwa loo sameeyo madaxda caalamka ee markaasi booqashada ku taga waddanka Imaaraadka Carabta. booqashooyinkaasi ay ugu dambeysay midda madaxweyne Biixi ee ay wada yeesheen madaxda Imaaraadka Carabta iyo Somalilan ayaa waxaa ka soo baxay isfaham iyo qorshayaal muddada dheer iyo muddada gaabanba anfacaya labada ummadood ee Somalilandiyiinta iyo Imaaraatiyiinta. aragtiyahaasi oo ku qotomay iskaashiga dhinacyada ganacsiga, ammaanka, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo caafimaadka. waxaa kaloo dowladaha Somalilan iyo Imaaraadka Carabtu ay iska kaashadaan kaabayaasha amniga, iyadoo madaarka Berbera ay dowladda Imaaraadka Carabtu ku yeelatay saldhig militari kaasi oo Somalilan ay markaasi ugu ogolaatay si markaasi la isaga kaashado kaabayaasha dhinaca ammaanka, waana saldhigga ugu muhiimsan ee Imaaraadku markaasi ay ku leeyihiin Geeska Afrika.